daawadayaal waxaan barnaamijkan ku eegaynaa waxqabadkii uu hirgeliyay Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon muddadii uu xilalka kala duwan ka hayay Somaliland. ninkan ka hadlayna waa barasaabkii u horeeyay gobolka Sool, wasiirka hore wasaaradaha caafimaadka, dibadejinta, arrimaha gudaha, waxbarashada iyo arrimaha dibadda, ahaana xubin ka mid ah baarlamaankii dawladii madaxweyne Daahir Yaale Kaahin. haatanna ah musharax u taagan qabashada jagada gudoomiyaha baarlamaanka soo socda ee Somaliland. Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaana socdaalka u kurgelida waxqabadka Professor Yaasiin ka bilownay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool markaan 1 kiiloomitir dhinaca waqooyi waan babaxnay ayaan gaarnay halka uu ka socdo dhismaha boordanka agoomaha oo ay fulinayso dawladda Kuwait. waana goob waxbarasho oo Professor Yaasiin dhagax dhigay muddadii uu hayay xilka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. haatan dhismihiisu ku dhow yahay gebagebo. halkani waa tuulada Samakaaba waxayna magaalada Laascaanood u jirtaa ilaa 35 kiiloomitir. waxqabadka uu ka hirgeliyay Professor Yaasiin Maxamuud Xiir waxaa ka mid ah dhismaha xarunta xanaanada hooyada iyo dhallaanka oo markii ugu horeysay ay yeelanayso degmada Tani Samakaaba iyo sidoo kale hirgelinta ceelbiyood ay mahadiyeen dadka deegaanku. waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo dhalinyarada deegaanka ka mahadcelinaya waxqabadkaasi. waxaan halkan uga mahadnaqayaa wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane wasiir Professor Yaasiin Maxamuud Xiir oo in badan deegaankan wax fara badan ka qabtay. tii ugu dambeysay uu qabtay ee ahayd MCS-ka weyn ee loo dhisay tuulo Samakaab oo uu si fiican oo sharaf leh uguna halgamay uguna dagaalamay ilaa dhamaad ilaa bilow ilaa xireyntiisii ilaa soo bixitaankiisii. xitaa waxa jira in caqabado badan oo wasaaradda caafimaadka ka hor yimaadeen oo isagu ugu bareeray oo ganafka ugu dhuftay MCS-ka meelaan tuulo Samakaab ahayn inaan laga dhisin. waa waxyaalaha ugu hambalyeynano oo waxqabadkiisii oo waxyaalaha aan ku jecelahay oo waxyaalaha aan ku rabno MCS-kaas oo MCS dhismihiisu aad u dhameystiran yihiin. waxa kale oo jirta oo iyana jirta oo aan ugu hambalyeynana magaalada tafsiir aad u ogeydeen ceel biyood ma lahayn markii la aasaasay muddo ilaa 18 sanadoodna waxay ahayd biyo la'aan waxaan birkada ahayn laga cabi jirin. 18 kaas sanadood ay biyo la'aanta ahayd wasiirro fara badan oo ka horeeyay baa jiray Yaasiin Maxamuud Xiir oo deegaanka u dhashay oo aan marnaba nala soo qaadin biyo ama aan wax nagala qaban ceelka biyaha oo aan dacwad kasta u gudbinay. ilaahay wuxuu noogu fududeeyay xilliyadii la magacaabay Professor Yaasiin isaga ayaa noo keenay ceelka biyaha. anoo ku hadlay afka dhalinyarada deegaanka tuulo Samakaab waxaan marka hore halkan uga hambalyeynaa sharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada. waxqabadku deegaanka ka qabtay gudoomiyuhu waxa weeye marka koowaad waxa ugu horeeyay ceelka deegaanka oo muddo dhowr iyo 10 sano baahi weyn deegaanku qabay. waxqabadkiisa labaadna wuxuu ahaa MCH-ka deegaanka noo ka dhisay isna baahiyo fara badan oo deegaanka ay ka jireen ilaa iyo heer markii dambe la gaarsiiyay biyaha magaalada ceelku 1 kiiloomitir buu jiraa. 1 kiiloomitir magaalada waa la soo biyageliyay intay laag tahay in yar oo kooban mooyaane. waxaanu halka ka sheegaynaa waxqabadka Yaasiin deegaamadan ka qabtay waa wax aad u fara badan wax la soo koobi karo ama media ama buug yar la soo qorqoro lagu soo koobi karanaysan ahayn. hadeerna waxaanu gudoomiyaha cusub murashaxa gudoomiyaha golaha wakiilada aanu ka rajaynaynaa hadduu ku guuleysto wuxuu ku guuleysanayaa deegaamadiisana uu ka soo bixi doono haddii Allah insha Allah in waxqabadkii marka hore qabtay mid ka sii laba jibaaran uu ka qaban doono deegaanadiisa. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir oo ahaa markii hore wasiirka arrimaha dibadda iminkana musharaxa gudoomiyaha wakiilada baarlamaanka insha Allah waa ku guuleysanayaa waana u rajaynaynaa codkiisana waa siinaynaa. waxqabadadiisii iminka marka laga hadlo wax la soo koobi karo deegaanka uu ka soo jeedo ama gobolka Sool ma aha wax la soo koobi karo ma aha. halkan waa xarun caafimaad oo MCH magaaladani waa magaalo degmo cagacageynaysa. MCH hore noo may lahayn codsiga iyagii uu naga aqbalay uu noo fuliyay dhamaad ilaa bilow iminka ilaa qalabayntiisa ilaa shaqaalihiisa uu noo ballan qaaday. baahida kale oo noogu weyneed ee magaalada weyn saa u soo kabtayna waxay ahayd riiga biyaha sida ay sheegeen odayaashii horeba biyagelinta magaalada 2 kiiloomitir bay ahayd waa la soo biyageliyay. baahiyo kale oo fara badan iminkana uu noo ballan qaaday insha Allah waduu gudoomiyaha baarlamaanka ku guuleysto inuu noo ballan qaado inuu noo qabto annana waa ka sugaynaa. lamiyada qoriyo ilaa cili
lagaga soo baxay kulmiyaa horsadee degmada Yagoori waxay ka mid tahay deegaanada uu Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ka hirgeliyay waxqabadka muuqda waxaana laga hirgeliyay markii ugu horeysay saldhiggii booliska gurigii dawladda hoose ee degmada dugsiga sare ee Yagoori Secondary School MCH iyo waliba gaariga dhooliga ambalaasta uu keenay muddadii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Somaliland tuulada Guumeys oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Yagoori ayaa kamid ah deegaanada waxqabadka uu ka hirgeliyay Yaasiin Maxamuud Xiir ayaa waxa laga hirgeliyay dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka hirgelinta ceelbiyood iyo sidoo kale waxa biyo macaan la gaarsiiyay kaam ku yaala tuulada Guumeys halkaas oo ay degan yihiin ku dhawaad 800 oo qoys oo kamid ah dadka xoolaha ku waayay abaartii Sima ee ku dhufatay dhammaan gobolada Somaliland intaas kadib waxaan laamiga uga degnay dhinaca galbeed anaguna gaarnay deegaanka Shululux oo ah meelaha waxqabadka baahiyaha weyn ay u qabeen bulshada deegaankaasi laga hirgeliyay ayna kamid yihiin hirgelinta ceelbiyood ay ku dirsadeen dadka iyo xooluhuba iyo sidoo kale dhismayaasha dugsiga Shululux MCH-ka iyadoona deegaankaasi ay ka mahad celiyeen waxqabadka muuqda ee Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon baahidayada iyo ma garanaysaa waqti kasta oo ay dhanaanaato cidda kaliya ee noog ama wax noo qabataa waa Faratoon haddaannu reer Shululexeed nahay waxaannu abaalgud uga dhigaynaa maanta codka in la siiyo oo loogu taageero oo mid kasta oo mucaarid ah aanu noogu iman waxaanu u mahadcelinaynaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee imikana musharaxa ayaanu mahadcelinaynaa berigood waxaa nagu dhacay in riigu jabay inaannu iyadoo dad badan meesha yaallo riigaana lagu noolaa ilaahay ka sokow riigiina uu jabay 24 casho gudahood in naloogu sameeyey oo naloogu sameeyey degdeg emergency in naloogu sameeyey ilaahay baa mahadle sababtana waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda hore ee Faratoon halkan riigi waa wacan yahay biyaha waa la cabayaa waxaan u sii ambabaxnay degmada Yeele oo yana kamid ah meelaha fofog ee baahiyii ka jiray wax weyn uu ka qabtay Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir waxaana kamid ah dhismaha xarunta MCH-ka iyo dhismaha dugsiga Yeele oo markii ugu horeysay ay yeelanayso degmadani sidoo kale waxaa la gaarsiiyay biyo macaan xilli ay jirto abaar iyo biyo la'aan baahsan oo saameysay dadka iyo dunyadaba gudoomiyaha degmada Yeele Maxamed Aadan iyo qaar kamid ah odayaasha iyo dhalinyarada deegaanka ayaa ka mahad celiyay waxqabadka uu deegaanka ka hirgeliyay Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon markaanu ka hadalno waxqabadka halkan ka muuqda iskuulka waa aragtaan gacanta lagu hayaa waxa uu hadhay nuuradayntii ajfal dhiman lama tusabaa la yiri nuuradayntii cadayntii baa noo hadhay sidii kale uu dhan yahay rinjigiina waa ka jiingada ku socda qaybtii MCH-ka wata way socdaan haantii biyaha waa la dhisayaa dhismihii waa ka ku socda ayaamahan waa socday waxaan noo harsan waxa weeye oo insha Allah aanu hadda riyana gacan galeynaa waxqabadkii MCH-ka aanu dayr ku kordhin lahayn iyo labadii qole naloo sheegay aanu gudaha ka dhisi lahayn annagoo u mahadnaqaynaa wasiirka iyo xisbiga kulmiyaba ka warbixinayo iskuulku isagoo aan lahayn geena isagoo askuula lahayn oo geeda hoosta wax lagu dhigto ilaahay noo soo diray
iskuulka maanta idiin muuqda isagaa noo dhisay MCH-ka isagoo wax la qoray shaqo looga dhigay lacagta hadda ku socotaa alxamdulilah rabbil caalamiin. halkan aan joognaa amaad arkaysaani waa magaalada Yeyle waxaa soo gaadhay iyadoo lagu jiro jiilaal oo mataqaanaa ay ka jirto biyo macaan la'aan dadka duruufta iyo xaaladda haysa baahida biyaha macaan waxaa ka soo jawaabay oo biyo macaan soo gaarsiiyay egas wasiir ama musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon sidaad arkaysaan ama indhihiinu hayaan waxay dadku iyo deegaanku qaybsanayaan biyihii soo gaarsiiyay musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon mana aha markii koobaad ee uu ka soo jawaabo musharaxa gudoomiyuhu maaha baahida Yeyle markii koobaad uu ka soo jawaabo markii labaad maaha markii saddexaad maaha waa in badan waa qofka kaliya ee ku haya mataqaanaa indhaha deegaanka Yeyle baahiyaadkoodana si dhow uga soo jawaaba. wasiir Faratoon waxa uu beeraleyda deegaanka Daryeel ku wareejiyay gaadiidka loo yaqaano cagafta beeraha oo wax weyn ka tari doonta wax soo saarkooda maadaama uu deegaanka Daryeel caan ku yahay beeraha. waa ku hambalyeynaa gacmo furan qalbi furan waji furan baan kugu soo dhaweynaa boqolkiiba boqol adiga iyo waftaada hogaaminaysa runtiina maanta lama koobi karaa maanta lagu hayo reer Dalyarow waad aragtaan cagaftii aynu ka cabalanay musharaxnimadiisa waanu soo dhaweynaynaa codkana waanu siinaynaa waxa weeye wax kaliya wax noo qabta isaga jira maanta waxaan dul taagan waxa weeye waa cagaftii oo aanu in badan ku cabanaynay marka waxa weeye waanu aad baan u soo dhaweynaynaa codkayagana isaga iskale hadii ilaahay ka dhigo hadaan nahay golaha hadaan nahay reer Dalyare codkayaga isaga iskale wax qabad kalena waanu ka sugaynaa insha Allah bilmillahi kariim. cagaftaad noo keentay waa ku mahadsan tahay waana ka gudoomanay waanu kugu hambalyeynaa codkana waa ku siinay waxay ku soo baxday wasiir maanta amarkaaga ku soo baxday way xanibnay degmada Gambare Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxa uu ka hirgeliyay markii uu horeysay xarunta hooyada iyo dhallaanka haddii gasi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay haddii gesi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay siyaasiga caanbaxo sumad qarankaninaha hada darajada u sudhay saraakiisha heegankiyo nidaamku siduu ahaa siyaasiga caanbaxo sumad qarankaninaha hada darajada u sudhay saraakiisha heegankiyo nidaamku siduu ahaa haday sabi iyo haween intay ku sarakaceen kolkale ku sacabtumeeno aday ku salaamayaan aday ku salaamayaan haddii gesi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka